kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo telefishinka Home Cable uu siiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keaton. waraysigaas waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo quseeya xaaladda Soomaaliland kadib markii uu tagay magaalada Hargeysa maalintii shalay ahayd. wariye Maxamed Cabdi Ilig oo wareystay xogayaha ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyay ujeedada ugu weyn ee uu tagay magaalada Hargeysa iyo kulanka uu la yeeshay madaxda Soomaaliland. What is your main objective to come to Somaliland? The main objective has been to show solidarity with the people of Somaliland. ujeedada ugu weyn ee booqashadeeda waa inaan midnimo u muujiyo shacabka Somaliland ee la tacaalaya abaarta. taasina waxaan ka wada hadalay madaxweynaha iyo guddiga abaaraha heer qaran. shalay toorana waxaan booqday deegaanka degmada Gabiley si aan u soo eego goobaha biyaha iyo xarumaha caafimaadka. waxaana maamulka halkaasi aan kala hadlay istiraatiijiyada ku aadan gurmadka abaaraha. Secretary in Hargeysa, Somaliland. Do you mean that? waa booqashadaadii labaad ee aad ku timaado Somaliland ma waxa aad isleedahay Somaliland ma mudna in laga furo xafiis UN ah? Of course it's a priority. way mudan tahay maxaad u tiri miyana mudnayn? Because waayo tan iyo intii aad xafiiska la wareegtay way yar tahay booqashada Somaliland aad ku imaanayso. Well, there's a lot going on in Mogadishu. hagaag wax badan ayaa ka socda Muqdisho. waan ka xumahay halkan in badan ma imaado. laakiin halkan waxa inoo jooga koox weyn. asxaab aan wada shaqayno ayaa halkan yimaada. xitaa ku xigeenadeeda waa ay yimaadaan halkan in badan. xaqiiqdii in badan ayaan ku lug leenahay arrimaha Somaliland. there is a growing talks between Somaliland and Somalia. waxaanu ognahay inay jiraan wada hadallo u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya laakiin gaabis ayaa ku yimid sanadkii la soo dhaafay. maxay qaramada midoobay u dardargelin laadahay wada hadallada labada dhinac? The UN's role. kaalinta ay qaramada midoobay ku yeelan karto wada hadallo noocaasi oo kala waxay ku xidhan tahay in dawladaha Somaliland iyo Soomaaliya ay doonayaan inay dib u bilaabaan wada hadallada. haddii ay doonayaan wada hadallada waa ay cidda ay doonayaan inay arrintaasi u sahasho ama ay u fududeyso. haddii ay doonayaan cid arrintaasi u fududeysa waxaan u sheegay dawladda Somaliland iyo dawladda Muqdisho haddii ay diyaar u yihiin inay wada hadlaan oo qaramada midoobayna ay caawiso dabcan waan ka soo jawaabaynaa. Help, of course, we will respond. dawladda Somaliland waxay xafiiskiina xirtay sanadkii 2013 welina dib looma furin. waa maxay xaaladda hadda ee UNSOM inay dib uga furato xafiiskaasi Hargeysa? I wasn't aware that our office is closed. I mean, we have... ma ogeyn in xafiiska iyaga Hargeysa uu xiran yahay. waxaa noo jooga shaqaale reer Somaliland sidoo kale. waxaa halkan noo jooga sarkaal dhanka bani'aadanimada ah. waxaan u malaynayaa dawladda Somaliland kuma qanacsana in xafiiska ANSOM ay dhax orado siyaasadda Somaliland. sidaas awgeedna mid ka mid ah waxyaalaha ANSOM ay sameynayso waa taageerida bahda UN-ka ee ballaaran. waxaa halkan Somaliland jooga ilaa 20 hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo hawlo fara badan ka haya Somaliland marxalad kasta. laakiin ANSOM sidoo kale waxa ay ka qaadataa kaalin firfircoon sida xoojinta tayada ururada bulshada dhanka bani'aadanimada. waxaa sidoo kale dawladda Somaliland aan kala hadalnaa waxa loogu yeero geedi socodka ama road mapka ee lagu xoojinayo hawlaha ANSOM ee Hargeysa. Strengthened ANSOM activities. The UN supports Somaliland report redemption year after year. warbixinta UN-ka ee Soomaaliya waxa uu sanadba sanadka ka dambeeyay dhaawaca Somaliland oo uu ku sheegaa inay tahay maamul goboleed Soomaaliya kamid ah. taasi sax miyay kula muuqataa? The United Nations ma ogtahay qaramada midoobay waa hay'ad ay ka kooban yihiin ama ay xubno ka yihiin dawlado badan. dawladaha xubnaha ka ah aniga oo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ma yihi kan go'aaminaya sharciyada Somaliland. waqti xaadirkan beesha caalamka ma aqoonsana Somaliland inay tahay dal madax bannaan. waxaana loo aqoonsan yahay inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. taasi xaaladda way ku adkaynaysaa Somaliland. aniguba mararka qaar marka aan imaanayo Somaliland taasi waan dareemaa. tani ma aha doorashadayda iyo go'aankayga. halkan ayaan uga baxayaa cawaaqibka xaqiiqadaasi. laakiin xeerka caalamiga ah waxa uu qeexayaa in qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay wali u arkaan
in Somaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. See Somaliland still as part of Somalia. There's so many people who believe the UN response to dadku waxay ka fikirayaan in kaalinta qaramada midoobay ku aadan abaartu inay gaabis tahay maxaad ka leedahay arintaas Well, you know, the problem with drought ma ogtahay dhibaatooyinka abaarta dad badan ayaa caawimaad u baahan oo ka badan caawinaada la hayo hal sano ka hor qaramada midoobay waxa ay dirtay codsi ah in la caawiyo dadka iyo xoolahaba hortaga ayaa ka wanaagsan falcelinta laakiin nasiib darro codsigaasi ma helin jawaabo badan warka wanaagsan waxa uu yahay haddana mar kale ayaanu bishii January ee sanadkan waxaanu dirnay codsi kale oo ku saabsan in la helo dhaqaale gaaraya $825 milyan oo dollar qayb ka mid ah lacagtaasi ayaa la ballan qaaday haddana waxaa taalo oo la hayaa ilaa $300 milyan oo dollar waad arki karaysaa sida ay u korodhay waxaad arkaysaa sare u kaca ku yimi muga qaramada midoobay iyo kuwa ay wada shaqaynta leeyihiin iyo hay'adaha aan dawliga ahayn haddii ay yihiin kuwa caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliyeedba inay ka soo jawaabaan abaarta laakiin lacagta ayaa waxay timi xilli dambe marka aan sidaas leeyahay waxaan rajaynayaa inay ka hortagto macaluusha to respond to the drought. But the money has come quite late. Having said that, I hope it's come in time to prevent famine. today you met the Somaliland ambassador in UAE. maanta waxaad la kulantay safiirka Somaliland u fadhiya Imaaraadka sida aad ogtahay Somaliland waxay heshiis la saxiixatay Imaaraadka kaasi oo saldhig military ay kaga samaysanayso magaalada Berbera iyo in shirkadda DP World ay la wareegtay dekadda waa maxay fikradda aad ka aaminsan tahay heshiiska laba geesoodka ah Well, what I've been told by people since I got here to Somaliland hagaag dadku waxay ii sheegayeen tan iyo markii aan imid Somaliland in mugdi uu ku jiro qandaraasidaasi waxa la ii sheegay in mashaariicdaasi ay ahaayeen kuwa waadaxa mowqifka qaramada midoobay ee ku aadan heshiiskaasina waa mid sharciya marka loo eego sharciyada caalamiga ah cid su'aal galin karta ma jirto xuquuqda ay Somaliland u leedahay inay shaqo abuur iyo hab nololeed kale ay samayso iyo inay kaabayaal ka dhisto Somaliland gudaheeda laakiin su'aashu waxay tahay in la sameeyo hab la xisaabtan leh oo cad oo dadka reer Somaliland iyo beesha caalamku ay garan karaan waxa kale ay u baahan tahay in loo sameeyo qaab gobolka u sameynaysa xiriir wanaagsan waxa la ii sheegay in dawladda Somaliland ay arrimahaasi oo dhan si dhab ah u qaadatay and I was told that all these things have been taken very seriously by the government of Somaliland. Somaliland government is not obviously going to participate in London conference May. dawladda Somaliland kama qayb galayso shirka lagu wado inuu ka dhaco London bisha May haddaba ma jirtaa qaab ay qaramada midoobay kaga caawin karto Somaliland inay hesho qaybsi maalgashi si cadaalad ah waliba Well, there's two questions there. laba su'aalood ayaa halkan yaala waxaan ula jeedaa mid ka midi waxay ku saabsan tahay waa shir heer sare ah oo sanad walba Soomaaliya lagu taageero waayadii la soo dhaafayna waxaa jiray kulamo sanadihii hore dhacay mid ka mid waxa uu ka dhacay Istanbul kuwa kalena waxay ka dhaceen Copenhagen iyo Brussels waxaa jiray mid kulamadaasi ka mid ahaa oo Somaliland casuumad loo soo diray inay ka qayb gasho shirkaasi balse aanay ka qayb galin sanadkana ma filayo inay Somaliland ay warqad casuumada ka heli doonto cidda shirkaasi martigelinaysa laakiin taas micnaheedu ma aha in Somaliland aanay heli doonin gargaarka dhanka horumarka xaqiiqdii sanadkan waxaa la helay in ka badan $100 milyan oo gargaar dhanka horumarka ah laakiin awood darro jirta ayaa sababtay in sare loo qaadi kari waayo lacagaha beesha caalamka ee lagu taageero Somaliland dabcan arrintaasi waxay la xiriidhaa qaabka ay deeq bixiyayaashu ay u arkaan horumarka Somaliland oo ay ka mid tahay doorashooyinka dhowrista xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka iyo wixii la halmaala Protection of rights and accountability and things like that. What about your view? waa maxay aragtidaada ku aadan dib u dhaca laba jeer ku yimid doorashooyinka Somaliland I mean, I think delaying elections is not a good idea. And aragtideeda doorasho dib loo dhigo ma aha fikrad wanaagsan waxay la tahay ma aha waxay Somaliland doonayso hubaashi mana aha waxay Somaliland iyo saaxiibadeeda beesha caalamkuba ay doonayaan waa ra'yi aan wanaagsanayn in doorasho dib loo dhigo haddii ay wax soo darsaan oo uu dib yimaado waa iska caadi waxaa la ii sheegay sanadkan waxaa doorashooyinka dib loogu dhigay xaaladaha dhanka abaaraha ee jira
waxaan u arkaa joojinta doorashooyinka in la qabto iyo dib u dhigista la sameeyayba inay ahayd tallaabo wanaagsan waayo dadka ayaa halkii ay joogeen ka soo barakacay abaarta awgeed taasina waxay adkaynaysaa in dadku ay codeeyaan laakiin haddii aysan abaartu jirin oo dib loo dhigo waxay ahaan lahayd wax laga xumaado uma wanaagsana Somaliland waayo waxay noqonaysaa in Somaliland aanay eegaynin heerka ay ka joogto xisaabtanka dhanka dimuqraadiyadda haddii ay tahay doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa dawladaha hoose iyo xitaa kuwa baarlamaaniga. The 13 November the electoral guddiga doorashooyinka Somaliland waxay ishaaciyeen in 13 bisha November ee sanadkan ay doorashooyinka dhici doonaan ma u malaynaysaa intaasi ay suurtagal noqonayso? Well, I was told there is now a roadmap. waxaa la ii sheegay inay jirto roadmap ama waxa loo yaqaan geedi socod iyo waqti go'an oo ku saabsan doorashooyinka laakiin aniga taas ma arkin sida aan sheegay qaramada midoobay si toos ah uguma lug laha doorashooyinka Somaliland taasi way ka duwan tahay kaalinteena sida aan ugu lug leenahay doorashooyinka Soomaaliya. Somaliland dawladeeda ayaa maamusha doorashooyinka marka la eego roadmapka ama geedi socodka kuma arag doorashooyinka Somaliland aragtidayda ma hubo inay xaqiiq tahay laakiin waxaan rajaynayaa inay jirto waxaan ogahay dawladda Somaliland inay gelinayso lacag tiro badan si ay doorashooyinku u dhacaan laakiin waxa la ii sheegay inay dhab tahay in doorashadu ay dhacayso 13 bisha November ee sanadka 2017 dib u dhac kale lama rabo taasina waa arintaas take place on November the 13th and that they don't want another delay and I hope that that's the case. What about your office view according to the Somaliland? waa maxay aragtida guud ee ku aadan dhanka xorriyadul qowlka Somaliland sida aad ogtahay waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka dhex dhaca saxafiyiinta iyo xukuumadda? What about your view? Well, I've been told both by journalists and by hagaag saxafiyiinta iyo ururada bulshada labaduba waxay ii sheegeen in xorriyatul qowlku uu noqday arrin taagan halkan Somaliland dabcan xeerka xorriyatul qowlka xaqiiqdii waa mid adag waxa kale oo aan rumaysnahay in sharciga warbaahintu uu jiro kaas oo la sameeyay 3 sano ka hor waxa kale oo aan maqlay inay jiraan saxafiyiin waqti xaadirkan xidhan tani ma aha calaamad wanaagsan waxay la tahay waa nasiib darro saxafiga shaqadiisa gudanaya in la xidho isagoo oo dambi lagu soo oogayo haddii ay dhacdo in saxafiga la soo xidho waa in loo soo xidhaa qaab madaniya kuwa soo xidhayaana waa inay soo bandhigaan cadeymo qeexaya soo xidhistiisa haddii ay sidaasi noqon weydo micnaheedu idinkoo hawshiina ku jira waa inaad la kulantaan dhibaatooyin dhanka kale saxafiga qudhiisa waxaa saaran mas'uuliyad waa inuu noqdaa mid ilaaliya shuruucda iyo anshaxa isla markaasina uu khibrad muujiyaa waxaa kaloo aan maqlay dawladdu inay ku andacoonayso in qayb ka mid ah saxafiyiintu ay dhibaatada wadaan waayo waxay ku kacaan waxyaabo aan loo baahnayn inay sameeyaan laakiin isku soo wada duubo difaacidda shaqada saxafiga waa muhiim taasi ayaa ah dimuqraadiyad isla xisaabtan iyo u sheegidda shacabka loo sheego waxa jira and professionalism on the side of the journalists and I'm sure the government will say part of the problem is that the journalists are doing things that journalists shouldn't be doing. So, but on the whole, protection of freedom of expression is very important. Protection of the ability of journalists to work is very important because it's about democratic accountability. hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka ah ee telefishinka Home Cable uu siiyay wakiilka gaarka ah ee xukuumadda guud u qaabilsan arrimaha Soomaaliya